السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. أديد النور ومحا أركت كلها أديد النور ومحا أركت كلها بل نكمل بس اللي دقيسنا كل ومد قاقلا بعد أركي كل ومد قاقلا وحده دون كهلاية ودروميناي isagoo soo jeedu hawaweeya bal ilaa dhageysta odan iyo sar way maxaa ka dhalan kara December 4 baa ka dhalan karta iyo wax ka daran tusama hadii la joojin waayo imika qolaaban isku gacmaha bariyaga isku jirnaa qolada gubernatorial gacantii isku jirnaa oo inaga iyagoo hawl shiiba way iska socotaa iyagoo kala baxayna dollar waxyaalaha ka dhashay wixii nacasnimadii waxa ka dhashay dhulkeena Ireland dabcan maxaa ka dhalatay in rag ku dhinto soo أنا لقى سفين دور إن شاء الله دوان وماشي أسوي أوضل قعنتين يكسوق على سدوان إن شاء الله ردي سيب لنقاضي قعنتين سيبر وايد أنا مسي ما حنكون دورة عايش عنته كون دورة مسوي حنكون دورة جبوتي حقول هنا كنا وراضو وحكم كي عن كبته وندقالي وحكا الهراء أيه برنامج شو قاعد الناس هنا وحنكون ويمنا يا إسلا أوضل بنك حاجات طيب منا يا صورة كلمة waxa u badan tahay dagaalkeena hagaag u gelin insha Allah dagaalka hagaag baan u galnaa hawshaas way iska dhamaan doontaa xagga Soomaaliland iyada laftigeega Soomaaliland waxa jira bini aadanka waxay yiraahdaan wadagaysateen baan u malayn kolka waa dadka iska maaragtay qofku ku seexdo iyo hawaawiga ku fiican yahay صعب ولا هواويان سلطان ماركتي تي في كاني كلنا ماركتي كو ماركتي مريد وين سو خدايو ماركتي دغالك سي فعن ما غلين هيا كلكا بلنين ماركتي عيسى oo aqooyahana ayaan weydiinaynaa bal ninkan hawshiisa bal soo qaban insha Allah assalaamu calaykum waxay soo ku salaamay nin kolleyba dee inaad dhegaysataan u malayn nin maaragtay isagoo soo jeeda hawaawiyaya oo dagaalka si fiican uma gelin ee si fiican baan u galaynaa oo zeylac waa safaynaynaa le ayaan arkay adna waa dhegaysataan u malayn bal ninkaa jawaabiga sii dadkan maxaad ka odhanaysaa dadkan soo dhow salaamay waxaan salaamayaa Soomali Maxamed waxaan salaamayaa Ciise Turka ma Turka Ciise weyn niyo yo dadka adiga ku xiran ee Geel TV ku xiran taageerayaasha yaan salaamayaa horta ninkani waa nin iska hadlayo wii dagaal oo maaragtay ma sidii hore wuxuu dhahay hada si fiican uma wala gelin hadda si fiican u wala galaynaa waa iska maaragtay beentii lagu garanayay waa iska bootadii lagu garanayay marka wax uu hayaan ma jirto gobolkan dhan ee awdal uu ku leeyahay ciisaan ka safeynayna waxa weeye waa ari aad u weyn oo maaragtay waxa la yiraahdaa ethnic cleansing baa inuu dad masaxo u baabiyo u hasuuqo taasi waxa weeye waa ina maxkamadda lala tago la dacweeyo ninka sidaa u hadlaya baraha bulshada soo joogsanaya oo halisteeda leedahay marka hadda taasi aan dhaafo waxa weeye de gobolkan uu sheegayo ku qadimaysidee waxay horta maamahdi ku qadimaysidee ku qadimaysidee head iyo ma aragtay weey arrimahaas uu wadayo waa la garanayaa isuhu taariikhdii ku leeyihiin gobolkani iyo intay ka degan yihiin district Zeylac inuu isuhu u deganaa ilaa iyo degmooyinka hoos yimaada lagu haya boqolkiiba maaragtay 80 awdal inuu ciise leeyahay waa isku og yahay taariikhdana wayna siisay waana dadkoo dhanna way isku og yihiin marka indhahana iska tuurayaan ay soo qoodsanayaan de bakiya booramay anday ma aragtay ku finaan weydo de meedadkoogii day soo duulimaad maaragtay soo duulimaad qaadaan waxa ku dhacay de waa la iska garan waa la isku og yahay wixii jabkii sidii uu u tabi doonaa waxay ka sheekeeyaan waxaan ku aqriyaysanay
iyo kole gaaladu ingiriiskii harig baa wax kula seexanay harigan goormaa la arki doonaa iminka intaa oo bug harigaasi de waan weydiinaynaayo hariga ay balday Soomaali maxamed anala aragtay hariga ayaa noo keenan meesha lagu hariga waxaan rabnaa inaan aragno waxa weeye waa beenaha laga soo dhaadhiciyay intaasoo sinadood been iyo balaayada iyo khurafaadka laga dhaadhiciyay weeyi wax saan lagu saxiixday ma jirin dhulku dhul wuxuu iska horumarsan 1884 dhul iska horumarsan buu ahaa waxa la yiraahdaa industrial revolution baa la dhahaa dhulku dhul de maaragtay diyaarado iska loo tasaawiro iska ogaaskeeni waa kuwii tasaawiro laga soo sameeyay dhul maaragtay waraaqadu lagu qoro shaambado leh iyaheed wax xaraga lagu saxiixday iyo waxa ma lama joogo de waqtigii dhagaxa dadku Age de Pierre bay dhahan Francisco waqtigii Age de Pierre ma joogno waqtigii de maaragtay dhagaxda dadku ay sida daayirta u socdeen waqtigii lama joogo aqoonyahan awal soo kii looran jiray gadabursiga aqoon bay leeyihiin dadkan aqoonyahan sheekh waxaan ma isku wala mid ba hariga laga sheekaynayo dhibaatadu eeg waxa weeye sultaan maxamedow wixii markay beentu markay badato mid bay isku bedeshaayo way rumowdaa eeg hadda dad baa u qaatay beentii run waayo de markay beentu ay waqti ay soo socoto la qaban waayo waxaan arkayay mid maaragtay garka maaragtay cad oo garka ugiga leh oo beenta buurama ah oo sheeganay taariikhda Djibouti waniga arkay been iyo balaayo wax ma aragtay laga soo dhaadhiciyo lagu soo shubay weey eeg ragaay hal ma aragtay source ama hal buug beriga laga qoray ma sheegayaan waa wax jeebka iyo kala soo bixin la hawla wala waxay wala wataan oo dhan eeg dhibaatada waa taa marka beentani markay beentan ay soo socoto lala dagaaltami waayo beentay liska dhaafo waxay noqotaa mid bay noqotaa way rumowdaa dad baa ma aragtay waxani aamini doona qaadan doona sii faafin doona dhibteeda leedahay waa inay ma arkaysid ragga in tolkeen oo baraha ku jira waxaan rabay ma arkaysid ragga oo dhul Isa ku doodaya ama taariikh Isa ku doodaya ma arkaysid waayo Isaaqu sida loola hadlo iyo sida meel loo saaro ninka imika haduu Isaaq ka hadli lahaa ama dhul Isaaq sheegan lahaa buurama lagu tagi lahaa wala gogoyn lahaa marka Ciise dhibaatada taala waxa weeye waa dayarsiga waa abtinimada waa ma aragtay iska daaya waa miska waa dad walaalaheena waa dad masaakiina waa dad caynkaaya waa hadalka jilixsan weeyi iyo dhibtu keenaysa anu mar hore waan hadlo oo waxaan dhahay niyow Ciisow waa waqtigii aqoon xadkaaga la soo baxaysay iyo gaadhay qol xadkaaga la soo bax kolka maxaad ka oranaysaa in Muuse harigle harig baan wax ku seexanay iyo odaygii maaragtay maxamuudi iyo saylac iyo Djibouti 400 oo ninka garka cad leh ee halka la soo fadhiisanaya waa ninkii buuga beenta ka sheegay beentii baa la sii durugtay kolka maxaad ka oranaysaa dadka maaragtay social media ku jira ee ka soo jeeda maaragtay Guban State of Somalia ama magaca Ciise sheeganaya inay qof kasta hadduu kelmad yidhaahaba 200 oo kelmadoo inay ka yidhaahiin maxaad ka leedahay waa sidaas weeyi markaan ku leeyahay qol xadka la soo bax maaha yani inaa qofka maaragtay inaan meeshiisa saar baa leedahay sidoo baraha bulshada soo beenta lagu faafinayo inaa lagu hortago beenta la qabto weeyi markuu hadlaba 100 meelood laga soo furto la ambaareeyo yay maaragtay yaan anu soo jeedin lahaa kolka ibika baraha bulshada laga dagaalamo waxaad leedahay waxaan malqaayay kii inaa cali inuu maaragtay maqsin isku soo xidhay uu iscasilayo isaga ayaa maaragtay tiktokerada soo geliyey kolkaasi waxay ku noqotay arrimo kale ku noqotay oo maaragtay malaha dhulkan Ciise ma joogo oo maaragtay
ظهر عدم بس كقادنا يسيم مدحيس كذا يعني جاهل يهي حد كشيء يكون ومدحونا كحيجينكي horta maxarada waxani waa waxa iskula ogaayeen oo kompanigii markay galeen Muuse marninka la yiraahdo Iro iyo Abu Khalifa gobolkani inay maaragtay ku wareejiyaan Gadabuursi sida u hadlayaan yaad ka dareemaysaa wax qorshe laga soo shaqeeyay markay mar walba Iro sama qaybsigeena rabnaa waxay ka dhigan tahay aaway waxaan ku yeeshinay way heshiis hoosaaneedkii aan marnay aaway weeyaan marka ballantani ciise isma lahayn ciisuhu maanta dee dhulkiisii buu u saro kaco dhulkiisii uu soo xidhay ismaba lahayn bataa sidoo ciise maaragtay u hurday umay u malaynayeen inuu u seexan doono dhulkani way siiyeen marka ay qorshahani dee waxay ay baa cunay qorshahani ay baa cunay oo ma saddex sanade waa kuwa maaragtay gaagaleynayay rafaadaya war ciise weyne farin waxaan u dirayaa dhulkiina alla ilaashado ilaayo bulxaar weeyi waa ninkii ka hadalnay shadii dhaweed taariikhi aan soo dhignay laba jeer inay habar yoonista habar awaltu laba jilib oo hoos ahaana isku dagaaleen laba jeer aan ka saarnay 1884 1884 bay ahayd kotonkii afartii iyo 1889 laba jeer ay soo kala laabteen aan bulxaar aan ka saarnay Britishkana xitaa dagaal aan kula galnay marka de taariikhdiinu saasaan caddeyn oo aanu ku haynaa caddeynna ma hayaan buugaana iska soo qortaan oo jeebkooga kala soo baxaan ay suursa meel loo raacana lahayn dadkii maaragtay alla soo jeeda taswiir iyo qofka ku qadimaysidii iyo harigii iyo korba ku dhisnay zaylacdii bal haragani ana tusaan bal anu waxaan leeyahay Soomaali ma marnaysa harigan u baahanahay haragan noo keena meeshu yaalo manu arag buugaantii laga qoray zaylac way taalaaye oo buugaantii gaaladu ka qortay wax walba waa haynaa taariikhdana waa garanaynaa bal ma aragtay haragani ana na tusan siduu eegyahay ما شاء الله taasay ku xirmayaan bent iyo bobaragnota ila waxaan leeyahay ciisaha la dagaaltamo ragani waxa lagu yiraahdaa cadeenkeen un baa lagu yiraahdaa taariikhaha waan haynaa cadeenka keen ما شاء الله kaas wuxuu ahaa waxays oo dadka maaragtay buugaanta akhrista ah oo aad taariikhda maaragtay zaylac buugaan badan haya kolka intaan dib uga kulmayno aad baan ku salaamayaa Ramadaan Mubaarak رمضان كريم هذه رمضان السلام عليكم